kulanti habboon daawadayaal dhammaantiinba halkani waa Shumis TV qodobada ugu waaweyn ee aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid ah cadaadiska Muuse Biixi lagu saarayo inuu ciidamadiisa ka saaro gobolka Sool oo sii xoogaysanaya igaad oo ku soo biirtay daneeyaasha daneynaya in laga saaro gobolka ciidamada Muuse uu u soo diray inay xasuuqaan dadka deegaanka ee weli ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Sool. dowladda federaalka Soomaaliya oo xaqiijisay inay ku dadaali doonto sidii maleeshiyada Muuse uu ku soo diray gobolka iyo dadkiisaba looga saari lahaa loona gey lahaa xuduud la iskala raali yahay oo ah xadka beesha Isaaq. Mahdi Maxamed Guuleed oo ka dhawaajiyay dambaale dhaawacaya dhimirka Muuse sidoo kale qorshayaasha Muuse Biixi hadda uu ku fikirayo meelmarintooda iyo xaaladihii ugu dambeeyay colaadda gobolkan ayay Shumis TV idiin soo gudbin doontaa goordhow. soo dhawaada una diyaar garooba saaxiibayaal. markale kulan wacan meel kasta iyo goob kasta oo aad joogtaan halkaas sida tooska inogala socotaan waa shabakada warbaahinta ee Shumis TV. soo dhawaada saaxiibayaal. Muuse Biixi waxa uu mar kale maqlayaa dhawaaqyo aan habbooneen oo aan taageeraynin damiciisa gardarada ku dhisan dulmiga xambaarsan godobtana ka galay dadka deegaanka sida ay ka turjumayaan xaaladaha hadda soo baxaya iyo fariimaha ugu waaweyn. Muuse Biixi waxaa loo diray dambaalo kale oo ka turjumaya inaanay xal iyo xeelad toona ahayn in la arko sida ay tahay colaadda maanta ka socota gobolka Sool sii socoshadeeda iyada oo maanka lagu haya dareemada ay xambaarsan yihiin iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada kala gedisan ee ka imaanaya gobolka. marar badan Muuse waxa uu dhagaha ka fureystay fariinta ah inaanu diyaar u ahayn in ciidamadiisa laga saaro gobolka. wuxuu aaminsan yahay ciidamadiisu waxa ay wadaan halgan xoreyn ah ka hortag cadow soo duulay iyo ciribtirka argagixisan nabadgelyo darro ka abuuraysa dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliland. laakiin markaanu eegno dhambaalada ugu waaweyn ee soo baxaya waxay dhammaantooda ku talinayaan ciidamadan xadka ha laga saaro ha la geeyo dhulka ay ka soo jeedaan dadkan deegaankooda loo madax banaaneeyo ha laga dulqaado ciidamada dagaalamaya iyo qaar kaloo badan. dunidu waxay weli taageeraysaa xaqa iyo xuquuqda iyo rabitaanka dadka deegaanadan ay leeyihiin oo ah in dhulkooda loo dhaafo oo dadkooda loo nabadgeliyo wixii wada hadal ahna ay noqoto bal iyagoo dhulkooda u madax bannaan gacantana ku haysto in la wada hadlo. muusena midda uu ka dhimanayo ee uu dagaalka ka galaya ayaa ah inaanu taasi rabin. marar badan oo cadaadiska midowda Yurub iyo Mareykanka ay saareen waxa uu yidhi ciidamada iga jooga halkaasi waa badan yihiin waqti dheer ayay u baahan yihiin bal in la siiyo dib u habeyntooda iyo in ay saanadooda iyo sahankooda la soo tagaan. wax bil iyo saacado iyo maalmo qaadanaya ma ahan, waxaa laga yaabaa bilooyin iyo sanadba inay qaadan karto. taas oo ka dhigan qorshaha Muuse ma sahlana nin si fududna ku yeeli karaya in ciidamadiisa uu ka saaro gobolka ay u muuqata ma aha. igaad oo Jabuuti ku shirtay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay dooda ka yeesheen waxaa ka mid ah laba qodob: in la taageero qodobadii ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaranka kulankii xamar ka dhacay Puntlandna ay dibad joog ka ahayd. waxyaabaha ay ku taageerana waxaa ka mid ah in dalkaasi la xoreeyo doorasho dadweynena la dhaqan geliyo. midda labaadna waxay ahayd qadiyadda colaadda gobolka Sool oo dhowr bilood weli sii socota iyadoo dhinacyadu aanay wax wada hadal ah u bilaabanin qodobadii iyo shuruudihiina la isla qaadanin oo ahaa in dadkaas marka hore dhulkooda looga baxo oo ciidamada dul taagana laga dulqaado. tii ayay igaad dood dheer ka yeesheen sida muuqata. hogaamiyaha Jabuuti oo ay far ku gudneed ayaa marar badan ka hadlay kulanka isagoo sheegay in Jabuuti ay ka go'an tahay taageeridda nabadda Soomaaliya ciidamadeeduna ay u joogaan hadda oo ay dhiigooda ugu horeen in dadkaasi walaalahooda ay nabad helaan. si lamid ah ayay u dhibaysaa Jabuuti waxa ka socda colaadda gobolka Sool. Muuse Biixi ayuu sheegay Jabuuti hogaamiyaheeda Geelle inuu wada hadal toos ah la yeelanayo kuna qancinayo inuu tixgeliyo baaqyada caalamiga ah ee nabadda gobolkaas la xiriira. Ismaaciil Cumar Geelle ayaa hogaamiyaasha gobolka u sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay qaado tallaabooyin lagama maarmaan ah oo colaaddaasi looga takhalusi karo. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay hogaamiyaha dalka Itoobiya oo hadda ra'iisul wasaaraha wadankaasi Abiy Ahmed ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay qaadatay doorkeeda hogaamineed ee gobolka ah
iyo tixgelinta madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyadoo wada hadal gaar ah la yeelatay dowladda federaalka Soomaaliya ayay u dirtay wafdi si dhinacyadaasi wada hadal ula yeeshaan. wafdiga waxa ay tageen magaalada Garowe iyo sidoo kale magaalada Hargeysa. ujeedku waxay ahaayeen dhinacyada loo kala dab qaado oo Itoobiya waxay taageereysay in nabadaasi la xaqiijiyo. waxyaabaha ugu waaweyn ee Itoobiya markii ay Garowe ka tagtay wafdigeeda ay tageen Hargeysana Muuse la wadaageen waxaa ka mid ah Muuse ciidamadaada ka soo saar gobolka haddii aad diyaar u tahay wada hadal nabadeed, haddii aad diyaar u tahay isqancin, haddii aad diyaar u tahay in xaaladda hadda meesha ay joogto laga soo durjiyo oo si toos ah loo wada hadlo. waxyaabaha aad u baahan tahay ee inaad tixgeliso lagaa rabaa ay tahay in aad marka hore ciidamada ka saarto gobolka. waa dadka deegaanka fariinta ugu weyn ee ay meel kasta ka sheegayaan in dhulkooda looga baxo. sidee wada hadal ku yeelayaan, sidee gorgortan ku yeelayaan dad la dul joogo dhulkoodii la haysto xabadna lagu garaacayo. xabad joojintu ma bilaaban doonto mana dhaqangeli doonto ilaa ciidamadaada la durjiyo oo laga soo saaro meesha ay hadda joogaan. taas ayaa la isla qaatay inay tahay dalabaadada ugu waaweyn. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah hogaamiyaashii madaxda urur goboleedka IGAD ee Djibouti u tagay ka qaybgalka shirka IGAD ayaa isagana sheegay in dowladdiisa ay qaaday door weyn oo ay ka mid tahay xalinta colaadaas. waxaana uu sheegay weli inay ku howlan tahay in dadkaasi deegaanka ah dastuurka Soomaaliya xaqa iyo xuquuqda uu siinayo ay banaanka u tahay dowladdu ay ku taageerayso balse aanay ka hor istaageen. hadda mas-uuliyiinta dhaqanka ee garaadada ismada isugu jira ka soo jeeda goboladan ay jooga xamar ayuu sheegay dowladdu inay talooyinkooda dhageysatay welina hadda wada tashiyo ay sii wado. dowladuna marka wada tashiyadaas iyo wada hadaladaas ay soo gabagaboobaan ay qaadan doonto go-aan ah in dadkaasi lagu taageero waxa xaqa ay rabaan. taasi oo ka micno ah inaan dowladdu taageereynin wax allaale wax dad kale oo Soomaaliyeed dhaawacaya ama dhib ku noqonaya, laakiin qofna xaqa iyo xuquuqda uu ku leeyahay dastuurka dalka cid dhaafin karta ama ku xadgudbi karta ama seejin karta aanu jirin. markay halkaa shakadu joogto geelle ayaa loogu baaqay in isagana wixii odaytinimo ah uu samayn karo ee colaadan lagu joojin karaa inuu qaato oo uu sameeyo. meeshan uu ka saaro tuhunka la hadal hayo ee la qabo ee ah in colaadaasi uu garab ka mida garabyada isku hardinaya uu taageersan yahay. hogaamiyaasha oo fahamsan kana dharagsan xaaladda iyo faragelinta Djibouti iyo xitaa in la arkay saanad huba oo ay siisay Djibouti Somaliland in lagu qabtay gobolka ayaa haddana waxay hogaamiyaashu yiraahdeen annaga weeye faafinta rasmiga ee warbaahintana laguma soo saarayo bal aynu si toos ah oo degani u wajahana xaaladan. cid allaala hogaamiyaasha dalalkan haddii tuhun laga qabo qaarkood bal maanta fursad ayay haystaan dib u gurasho ha sameeyaan oo xaaladda faragelinta ha joojiyaan, kala safashadana meesha ha ka saaraan. Suudaan ayayna nabad u rajeeyeen oo hadda xaalad qasan ku jirta. dhinaca kale marka aynu u soo laabano kulanka isla IGAD waxay yiraahdeen waxaan u baahannahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo dhinacyadu ay qaadayaan. IGAD dhinacyada dagaalka laascaanood waxay ugu baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo diriirta hadda ka socota magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool. urur goboleedka IGAD sidoo kale waxa uu soo jeedinayaa in wada hadal lagu xalliyo kala aragti duwanaanshaha u dhaxeeya dadka deegaanka iyo Somaliland. waxay taageeraysaa IGAD wax walba oo xal lagu heli karo iyo habab kasta oo lagu gaari karo xabad joojin iyada oo la tixgelinayo duruufaha adag iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanka. dhinaca kale Mahdi Maxamed Guuleed Khadar xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo gudoomiyaha guddiga dib u eegista arrimaha dastuurka ee ah bal haddii wax laga bedelayo muddada xilhaynta ee hay-adaha dowliga ah ee dalka sida baarlamaanka iyo madaxtooyada ayaa sheegay in Muuse Biixi uu aqbalo fariimaha uga imaanaya dowladda Soomaaliyeed iyo sidoo kale dabcan beesha caalamka uuna ogolaado in uu nabadda deegaankaas door ku yeesho bedelkii uu colaada iyo caburinta iyo cagajuglaynta iyo ciqaabtaasi uu sii wadi lahaa. waan u sheegayaa Muuse wax walba iyo si kastaba oo uu madax adeegiisa u adeegsado kama adkaan doontid dhulbahante intay goor tahay dib isugu laabo oo ciidamadaada waa la yaqaanaa xuduudka beesha Isaaq waa ooge hala geeyo
haddii kale waxaa kuu sheegaya taariikh xumo ayaad kala kulmi doontaa intii aad ku taamayso ka adkaanshiyaha dhulbahante oo dhulkooda jooga. wararkeenii guud waad kala socoteen shabakada warbaahinta ee Shumis TV daawadayaal waa inaga intaa nabadgelyo dhammaantiin.